الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal khudbadani kuwii hore la socotaa waxa weeye shaybaar aynu ku samaynayna camaladii aynu qabanay Ramadaan in la aqbalay in kale Ilaahay bay gacanta ugu jiraan subhanahu wa ta'ala camaladaas. laakiin calaamada jira ahlul cilmigu ay soo ururiyeen oo astaan u ah qofka in la aqbalay camalkiisa. astaamaha waxa ka ah cadamu rujuuci ila dhanbi ba'da daa'a, qofku inaanu dembigii uu ka toobad keenay Ramadaan ee uu ka hadho Ilaahay daraadii u daayay inaanu dib ugu noqonin. dembi waa la yaqaana qofka muuminkii wixii macsiyo dembiya uu garanaya. waxaa ka mid ah taariku salaadnimadii, waxaa ka mid ah xaaraan cunkii, waxaa ka mid ah balwadii. tusaalu Ilaahay noo soo qaaday subxaanahu wa tacaala: walaa takunuu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaatha. halla mid noqonina baa Ilaahay riixu dumarka hayda xariga intay soohday dib u furfurtay. waa qof tacabkiisii burburinaya oo kale. nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa muslim ku sugnaa waxa uu leeyahay: allaahuma innii acuudu bika min alxawri bacda alkawr. ilaahay waxaan kaa magan galay inaan dib u noqdo intaan horu socod noqday kadib. anigoo horu socod ahaa khayrka ku horumar ilaahay dib hay celin. arrinta aad baad uga fiirsanaysa. kol haddaad aragta khayrkii hore aad ugu socoto oo wixii hore aad ka tagtay aanad ku laabanayn, waa calaamad wanaagsan. waxa labaad alwajil min cadami alqabuul, in qofku uu ka warwarsan yahay in laga aqbali waayaba wixii uu la imanayay, oo aanu isqancinin oonu odhan adigu waad wanaagsan tahay, waxba kaama xuma. waayo ilaahay subxaana wa tacaala inooma baahna oo wuu inaga maarmay. nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu aayaddaa fasirayay, عائشة رضي الله عنها سيدة قالت كائن فهمت: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وضدك وحي إلي مادين لا إيمانيا يقع عبسانيا قلبي قد عبسانيا. مركا واحد تلما ضدك معصية يدن بقى ماداه ما يبوب. وضدك الصدقة إيا صومك إيا الصلاة لا إيمانيا هذا كعبسانيا لقى أقبل واي. مركا اسقنعنت إلهي الله لما تقى سبحانه وتعالى إن هذا يسقوق عن سقف ونكسنيات. laakiin waa inaad ogaata kaabisnimadaada iyo qalooca qofka imanaya in badan. arrinta saddexaad tawfiiqu ila acmaalin saalixati bacdaha, waa inuu qofku kordhiyaa daacadii oo maalinba maalinta ka dambaysa wuxuu kordhaa si Ilaahay kuu jeclaado oo uu kuu ilaaliyo. walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah. xadiidkii saxiixa qudsiga ahaa nebigu waxa uu ka warinayaa Ilaahay inuu Ilaahay yidhi addoonka waxa aan ugu jecelay wuxuu igu soo dhowaado shaygan faralka ah. faralka wax walba u horeeya, sunnayaashana Ilaahay markastuu qofku sunnaha badiyo Ilaahay baa ku ilaalinaya subxaanahu wa tacaala, oo indhihiisa iyo gacmihiisa iyo cagihiisa intaba dhanba Ilaahay baa ilaalinaya fii xifdillaah. Ilaahay buu ilaalintiisa ku sugnaanaya. arrinta afraad waxa weeye istisqaaru alcamali wacadamu alcujbi bih wacadamu alcujbi bihi. waa inuu qofku camalkiisu la yaraadaa. tii hore ku dhowdahay laakiin sina waa uga duwan tahay. waxay culimadu u daliishadaan aayadda Ilaahay uhi: walaa tamnun tastakthir. ilaahay ha u manno sheeganin camalkaaga adoo badsanaya. addoommaha ha u manno sheeganin wixii aad samaysay. khaaliqa iyo makhluuqa midnaba waxay kaa gaadha ee xaq uu leeyahay aad siiso wax weyn ha u arkin. xasan basri raximahullah marka uu fasiraya aayadda waxa uu leeyahay: laa tamnun bicamalika calaa rabbika mustakthira. camalka aad Ilaahay daraadii u qabatay ama rabbi aad ugu cibaadaystay wax weyn ha u arkin. camalku ha kula yaraado. nebi maxamed baa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofna camalkiisa inaanu jannada ku gelin xataa isaguna. waxaa ka mid ah calaamadaha xubu daacati wa kurhu lmacsiya, qofku inuu dhadhan ku hayo cibaadadii uu jeclaado oo dhadhan ay u samayso cagajid iyo caajisnimo aanu cibaadada ku wadin.
وأنا إلهي تكو أماني أصحابتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إلهي وحيد إن شعليسي إيمانك وقلبك نكو قرحي عاصي لماذا إيا قال لماذا إيا وإذ النعسي إلهي مركا علامات دا الصحابة إلهي رضوان الله عليهم الدين نسكوها رقنا وحين قادنا إن عمل كيني وناكسنا هذا روس صعودة أرنت اللحاد حب الصالحين وبغض أهل المعاصي إنه قفك تشويقي سوحكب الدلاء واركضتك إلهي أي نرجين إني كدويهين أما إلهي عبادة السنة أما هو وناكسن ضاعدي عبادة كو وناكسن إنه قفك تشعلاضه ضدك حنحن إلهي درادي ونعه حديث كان بن عازب ورنا يا وحوى أوثق عرى الإيمان البغض في الله الحب في الله والبغض في الله قايبها إيمانك وحيابها وقوم متذكر سوى حكم ذا إنه قفك عدو نعي إلهي درادي ونعه عدو تشعلاني إلهي درادي وتشعلاضه ومصلحة الدنيا هي منفعية وحا آنو نقوم وحكو قيمين يددك قادنا وعلامات ونأكسن تاسنة وحا تضبات المداومة على الأعمال الصالحة قفك إنانو ككلاقوين وحي قيمها بدنا عربس كي الليلة وكسو قاتب بشر رمضان عبادوين كلا دوان بينكو عميرين هبين كي مالين تيبا قفك والله يابا سيدي إنانو نقرن لكن هدنا عمل كي سيدي سي شوكتو ونعوضا قرآن كي حسبي ولايها صدقاتي قيب ولايها وباسكريي أو صعانيسا صلاة دي هبين كي سيدي بيقو صعانيسا نوعية عبادة كلا دوانا وحكو حساب طمي أو قفك قرشها وقوشره قدروا كريين لي مادة سيدو النبي قبادي عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تضيقون عمل هذا قاطة انت كريسان إلهي نوحي نقو أبال مرين يا الله رموده وناكسن إنه خاتمة خير نقو خاتمة خير الله نقو خاتمه وحو النبي قال عليه الصلاة والسلام قف كمركو إلهي خير لدونه يستعمله وهول قلياه فقال الصحابة رضوان الله عليهم كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته وحو إلهي وافتشنا يا عمل وناكسن انتانو لمنين كهر marka isagoo ku taagan tubtii fiicnayd ayuu malaguna ka oofsanaya maanada marka arintaas waxay astaan u tahay oo Ilaahay uu ku abaal mariyay qofkii amalkiisii joogtay inuu khaatumada wanaajiyo waxa labaad oo Ilaahay uu ku abaal marinaya qofkii amalkiisa joogtay waqtiga culays soo fuulo amalkiisii inuu u qoro isagoo samayninba nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam idha marida al-'abdu aw safar كتب له من العمل ما كان يعمل مقيما صحيحا حديث صحيحة وحا إلهي وكو أبال مريا أدونكو مركا أو بكوضو أما السفره عبادتي وذي وكمشغوله إنه إلهي عمل كيسي عبادتي سين تسمين شر إن لأقبو إلهي وقرية وهذه قاركودتك الله شقيا دولتها شركتها قفكو مركو معذور يعذر دار ليه وحالا إلى مشاهر كيسي قلنا دي سياس كقاطو إلهينا أدومها لمد مها سبحانه وتعالى كرم كي يد يغضو يساقي كورورين مركا أدونكو هدانو إسياليالين أو عذر دار ليه هاي وحلا وحي عملا صلاة الليل كيبا لو قرية صيام كي صدقة دي وحلا وحي هليلي ويردن ولو قرية أرنت سيديادا دا وقدام بيسا وحويه إنو قفك عمل كي سوافق سيهي دينة إسلامك والمتابعة والإخلاص وشرد هذا مهمة inuu qofkan amalka uu sameeynaya ka daacadiye diinta islaamkana waafaqsan marka waa inaad ku eegtaa amalkaagu la adigu been isu sheegi meyside talab diinta ma waafaqsan sunnihii nabiga ma ku taagan tahay mid ay culimadu ku saxeen ma yahay niyadaadu waa nooceen ma isha ilaahay un baa iska eegaysa ma adoomahada inay ku arkaan yara jeclaysanaysa sidaa waa inaad isu qiyaasto marka kolka amalkaagaasi daacadnimada aad aragtay inuu ku sii dhow yahay dadka aan danaynay ilaahay una danaynaysa subhanahu wa ta'ala diintana waafaqsay arintaasina waa astaan muhiima oo sheegaysa qofkan in laga aqbalay amalki faman kana yarju liqaa rabbi falyamal amalan salihan amal saliha samee sharciga waafaqsan wala yushrik biibadati rabbih ahada rabbigiisa cibaadadiisana يوعد كله لو ذاتشني مركا وإخلاص كي تندم تهرنا وموافقتي مركا الرمها سين كل شيء بارين عمل كينا
hadaynu calaamadaha aragno waa ku bushaaraysanaynaa haddii calaamadaha waxay naga sii yihiinna waxaynu isku dayaynaa insha allahu inaynu toosinno oo nafteenna qalloocata aynu soo jeedinno ehelkiiyo asxaabtana aynu arrimaha ku baraarujinno intaasoo runtii sii raacsan mawaadiicdii hore aynu jumcihii hore ka hadalnay ayaynu ku soo koobaynaa allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaطila baطila warsuqna ijtinaabah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة